markale soo dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada koraskeeni Microsoft Excel oo aynu ku eegi doono muuqaalkeeni saddexaad inagoo muuqaalkii ka horeeyay ka soo hadalnay waxyaabaha aasaaska u ah barnaamijkan Excelka si aad wax ugu xisaabiso ama aad tusaale ahaan ugu diiwaan geliso waxyaabaha muhiimka ah ee sida xisaabaadka. haddaba casharkan waxaanu ku eegi doonaa qaabka loo diiwaan geliyo alaabta aad iibisay. tusaale waxaad haysataa business ama ganacsi ayaad haysataa, kadib waxaad iibisay alaab. barnaamijkan ayaynu waxaanu ku eegi doonaa qaabka aynu ugu diiwaan gelin karno alaabtii aynu iibinay, aynuna ku xisaabin karno shay kasta iyo wixii aynu ka iibinay, lacagihii aynu ka qabanay iyo lacagaha inagaga maqan. tusaale haddii qofka customerka alaabtii uu qayb inaga iibsaday oo lacagtii qayb bixiyay qaybna ay ku harsantahay qaabka loo saar lahaa. tusaale halkan waxaa inoo yaala ama waxaa inoo diiwaan gashan 4 item oo kala duwan. tusaale sonkor, saliid, daqiiq iyo caleen. 4 item ayaynu tusaalahan iibinay. halkan waxaa inoo yaala quantity shay kasta inta aynu ka iibinay. halkan waxaa inoo yaala waxa loo yaqaano sales price ama qiimihii aynu siinay. shay kasta qiimihii aynu siinayna halkan ayuu inoo yaala. waxaa laga rabaa markaa inagu inaynu formula ama qaacido ku saarno totalka guud. tusaale ahaan 5 kiish ee sonkorta ah calaa kiish $10 baynu siinay, marka inaynu soo saarno totalka guud ee aynu siinay 5 kiish ee sonkorta ah. waxaanu kala soo saari doonaa waxa loo yaqaano haddii qofka customerka tusaale ahaan lacagtii uu bixiyo ama qayb uu bixiyo. tusaale ahaan inaynu soo saarno qofka customerka haddii lacag lagu leeyahay oo lacag ay qayb ay wax inaga dhiman yihiin, ama haddii aan lagu lahayn inaynu muujino waxa loo yaqaano account receivable. account receivable waxaa leedahay deynta ama lacagta kaaga maqan qofka customerka ah. deynta waynu eegi doonaa, laakiin dabcan qofka customerka lacagtii qayb uu sii bixiyay qaabka ku saar lahayd tusaale qofkaasi waxa ku dhiman qaabkan ku saareen. waxaan kaloo soo saari doonaa total sales, wadarta guud ama lacagta guud. tusaalahan kale qofka customerka tusaale kale alaab kala duwan baynu ka iibinay, 4 item baynu ka iibinay. kadib waxaan samayn doonaa saleska aynu samaynay inta uu la egyahay. waxaanu kala soo saari doonaa qofka customerka total paid aan lacagta uu bixiyay iyo total AR ama total account receivable waxyaabaha ku dhiman ee ku maqan. haddaba waxaan ugu horeysin doonaa totalka. tusaale sonkortan ayaan ka bilaabi doonaa, waa 5 kiish oo min $10 labadani way isku dhaci doonaan. quantity ayaa wuxuu ku dhacayaa maxay sales price shaygan intii la siiyay. halka markaas ku dhufasho ayaa ka imaanaysa si aynu totalka u saarno. kadib waxaan leenahay calaamada loo yaqaano equal, inagoo muuqaalkii hore ka soo hadalnay qaabka wax loo xisaabiyo ama qaabka loo isticmaalo formulooyinka basic barnaamijka loo yaqaano Excelka. tusaale qiimahan ugu horeeya ama 5 kiish ee sonkorta ahi waxay ku dhacaysaa maxay 10kan. kadib waxaan leenahay 10kan 5tan xagee bay ku jirtaa, waxay ku jirtaa kolomka loo yaqaano e iyo rowga loo yaqaano maxay 7 ama 7. tusaale marka waxaad qoraysaa maxay kolomkii iyo maxay iyo rowga ayaad qoraysaa. waxaan leenahay E7 kadibna saa u jeedaan highlight ayuu inoo saaray. kadibna waxaan qabanaynaa shift iyo 8 ayaan qabanaynaa. kadibna waxaan eegi doonaa 10ka oo ku jira waxa loo yaqaano F7 isna highlight ayuu inoo saaray. kadibna waxaan leenahay maxay enter. marka waxa weeye 5 lagu dhuftay 10 waa 50. minis waxa weeye 5 kiish ee sonkorta waxaynu ka siinay calaa kiish $10. 5 kiishna waxaanu ka siinay wadar dhan ama lacag dhan $50. kasoo qof kasta markaa $50 wuxuu bixiyay $30 bixiyay. marka maxaa $50 maxaa laga jarayaa 30kan, maxaa ku haraya $20. kadibna AR kan waxaan leenahay wuxuu la mid yahay equal. kadib waxaan leenahay 50kani waan samayn karnaa inaan sheegno columnka iyo rowga ama equal. marka aad tiraahdo automatically ayaad ugu dhufanaysaa waxa loo yaqaano click method ayaa isticmaalaysaa inagoo muuqaalkii hore ka soo hadalnay. kadib waxaan leenahay wadartii guud ama 5 kiish sonkorta intii aynu ka siinay waxaa waa 5 kiish oo min 10 oo $50. $50 waxaan ka tiranaa maxay $30 ee uu bixiyay. kadibna waxaan leenahay enter. maxaa soo haray markaa 20 ayaa soo haray. minis waxa weeye qofkan alaabta waxaa laga siiyay $50 wuxuu bixiyay 30
kadibna waxaa lagu leeyahay ama ku maqan 20 kasoo qaad saliida oo kale tusaalahan kale ayay iyadana soo saari doonaa laakiin waxaan sii qori doonaa balbeelka qofkan waxa uu bixiyay $12 oo kale tusaalahan kale halkan wuxuu bixiyay $40 halkan wuxuu bixiyay $5 okay hadaba kuwan saddexda item ee haray uma baahan inuu mar labaad formulada isticmaalo simple waxaanu highlight saari doonaa totalka paidka ilaa account receivable-ka ayaynu highlight saari doonaa kadibna halkan ayaynu keeni doonaa calaamadaas waxay isu bedelaysaa maxay plus kadibna hoos ayaa u jeedi doonaa kadibna automatically isaga ayaa u soo saaraya marka waxa way 4 lagu dhiftay 6 halkan waa imsa waa 4 ka soo qad wuxuu bixiyay 12 ama waxa bixisa wuxuu bixiyay $18 okay wuxuu bixiyay maxay $18 ayuu bixiyay okay shay kasta marka imika waxa inoo muuqata intii aynu ka siinay lacagtii uu bixiyay iyo waxa aynu ku leenahay tusaale caleenta waxaan ka iibinay 5 kadibna waxaan ka siinay 9 lagu dhiftay 5 waa imisa waa $45 45 wuxuu bixiyay 33 kadibna marka 45 laga jaro 33 maxaa hara 12 tusaale daqiiqada waxaan ka siinay 13 waa 10 lagu dhiftay 13 waa 130 wuxuu bixiyay 32 waxa ku haray 98 kadib waxaan eegi doonaa totalka guud alaabtan oo dhan inta aynu ka siinay waxaan leenahay marka equal kadib waxaan leenahay sum oo ah function loo isticmaalo in uu ku soo saaro wadarta guud ama totalka kadib waxaan furi doonaa qows inagoo isla qabanana shift iyo maxay 9 kadib waxaan highlight saari doonaa itemskii halay totalkii ama shay kasta tusaale ahaan intii aynu ka siinay bano highlight saari doonaa ama totalka ayaynu highlight saari doonaa kadibna shift iyo 0 ayaynu ka xiri doonaa kadibna waxaan leenahay enter marka tusaale guud ahaan alaabta aynu ka iibinay qofka customer-ka ah waxaanu ka siinay $249 ayaynu ka siinay wax kalena maaha konton lagu daray 420 lagu daray 160 lagu daray 45 waa 249 total paid 249 baan ka siinay muxuu markaas soo bixiyay paidkina waa kan waxaan leenahay equal kadibna waxaan leenahay sum kadibna qoyska ayaa soo furana marka waad samayn kartaa in aad one by one atray column-ka qiimahan xageeba ku jira rowgiisa iyo column-kiisa aad tusaalahan kale aad dooratid kadibna aad balastiraad aad isaa ku wadid ama si oo fudud si aad waqtiga aad u koobto mararka qaarkood highlight ayaad saaraysaa kadibna shift iyo 0 ayaan ka soo xirnaa waxaan leenahay enter marka qofka waxaa laga rabay 249 wuxuu bixiyay maxay $33 ayuu bixiyay maxaa ku haray marka kadib waxaan leenahay equal waxaan samayn doonaa markaa isagana account receivable-kii intii lagu laaban highlight saari doonaa tusaalahan kale waxaan leenahay sum kadibna qoyska waan furaynaa kadibna highlight ayaan saari doonaa kadibna shift iyo 0 kadibna waxaan leenahay enter means waxa qofka waxa laga rabay 249 wuxuu bixiyay 33 waxa ku maqan 136 tusaale haddii halkii $50 laga rabay uu bixiyo konton maxaa dhacaya account receivable-kii uu yaraanaya way tusaale kale halka 4 laga rabay 4 kiina uu bixiyay account receivable-kii muxuu noqonayaa 0 ayuu noqonayaa way halkan waxa laga rabay 130 kiiba uu bixiyay waxa laga rabaa halkan waxa noqonaysaa 12 halkan waxa laga rabay 45 tiiba uu bixiyay simple mees waxa weeye qofkan customer-ka ah tusaale qofkan customer-ka ah alaabtan aynu ka iibinay waxay dhamayd 249 ayay dhamayd 249 ka halkan 249 kaas sida caadiga 249 ka 249 xogay yara mistake baa dhacay waan saxnay imika wadarta guud ama alaabta aynu ka iibinay qofka customer-ka waxay dhamayd 249 kii uu bixiyay wax lacag ah oo AR ah ama lacag inaga maqan ma jirto qofka customer-ka ah simple muuqaalkan waxaanu ka eegnay qaabka ugu fudud ee aynu ku diiwaan gelin karno alaabta aynu ka iibinay ama caamiisheena ama customerskeena kuna soo saari karno waxa aynu ka iibinay lacagihii uu na siiyay
lacagaha inaga maqan intaynu ku kulmi doono muuqaalka xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.